waalidiintayda intaba way jiraan dhammaantiin aniga dareenkayga maanta maalinkii hore oo aan soo baxayay iyo maanta isku dareen ma ahi dareenkii maalinkii hore aan soo dhaqaaqayay iyo maanta isku dareen ma ahi maanta u baahan abaar ay u sii dheerta aad baa loo cabaaday gabar baa ilmo iga keentay indhahayga way ilmeeyeen xagar jareer bay joogtay gabadhi hadalkeeda waxaa aan igu rooraan lahayd guryihii ayaantii ayaan ka duwaneed nadiif jaamac aadan 15 kilomitir meel u jirto banaanay baa nalooga hor imaaday waxaa hadda kole ishayda ay haysay 20 iyo dhowr bigi 30 lugeynayaan habeenkii waan iska seexanay subaxii haddii la isku imaaday barsidii la isugu imaaday gabar baa waxay la soo booday waa iska qaali haddii ilaahay idmo waxyar dhegeysta aabo raalli ahaada waxyar waa liidan fasixi doonaa saa rabtaa baad u cayaaraysaan aamus waxyar iyo aamusa waxyar iyo farid waxyar aamusa salaamu calaykum reer barquwe cabdiqaadir sheekh cali baa sheekh xasan nuure naas isu daayeen aniga ninka xaajiga waxaan ka imaanay meeshii la dhadhaab waxaana keenay hilbo iyo xanuun ninkaan oo la soconno dadka annaga oo meesha ku dhibaysan sidaan asagana kursiga ku geyn lahayn ayaan uu ku anfici lahaa inaan garab ugu noqono oo ma garanaysaa aan meesha ku geyno markay sidaa tahay hawl waxaan la raaciyey waa laga xisaabtami ilaa horta diinta horta ku hogaamiya waan rabnaa waa qodob oo dadkii lagala xisaabtami lahaa aakhiro lagala inuu horta diinta ku hogaamiya waan rabnaa diinta horta inuu ku hogaamiya waa qodob midda kale mas-uulnimo إلا مرتدي يا برقوقة كل يوتا خمرة على هلا قاضو وان قادنا هلا قاضو وان قادنا هلا قاضو وركون كبحيسو نوع ماتي وحي أي جعلاين أي كل سعودين ويو إمادين أننا واجعلنا من نلج عيشين ها أبشرت الله نوافجيه أبني جنا نبتقلي الله نقصيه intana waa isla dhalatay urkooli Allah ka yeelo amane aadan oo man waligiiba burquuqay meel uma soo dhaafin ya waad ogsantiin udubka maalinkii hore ila suuray sidaan u fariistay in ugu rajabeen ugu aqoontoobay inaan aqoon meesha rajanimaan ku wareegayo raas aan ku dagaan waay waan fariisanay faatahadan mari gabarna hal isii ani aan ku dago حياي oday la tirsanay la waay maxaa ka xun hay nin cayr ah iyo rati dawr la'aan meesha si ku dhaafan lama gartaa leey tii baan ay raas la'aan duqbaree baan kolba agteeda fa fadhiya kolna hayntii oo raami gudaa u gurtay baan yaa ka daba tagaa abshirta Allah na waafajiyo urkooli Allah naga yeero iska ogaada idinkoo maanta ballan qaadeen in meelaha idinku xidxito qaryadiina iyo qabiilkiina iyo nasabadiina ha ku gadanayna lacag walaalkeen baa soo galay warigaanba waxaan u malayn 85 sano maanta dabkan iga galay sakadan maanta 5 sano qurbad ka imaatay bini aadan kale xaqiisa oo kaabeen iga imaatay ani wali ma laqin intaana wada jir iyo walaal ma garad marka hadda ilaahay irsaaqada ilaahay baan tala saaranaynaa midda noo daran waxa weeyo amni nabadgelyo Allah na siiyo amniga anaga uu bixi waayay nabadgelyada waan weynay wax xulada ee shidahay iyo wax uu intuu soo agaysaga ka tagay moogay wixii noo soo galay wax noo qabta waa weynay maanta waxaan rajaynaynaa cali hadduu soo galo xaaji cali hadduu soo galo isbedel kay aanan ahayn inaan heli doono amnigu nabadgelyo noo noqon doono cali ma nala qaadeen insha Allah faatax qoyska wax dagi karana ma
annagana curyaamis xun baan ku qabnaa maxaa yeelay magaalada ruux oo kale ma degi karo booran iyo bilisna ay degtaa la rabaa ma maqashaa cali waan qaadna waa wiilka annaga uu nala dhashay waan qaadna calabkiisuunu qaade calabkiis wuu ku qaade teeda kale barquuqaya magaalo xun waay magaalo xun shaydaan baa xun ma maqashaa ninka aan rabna inuu dhammaatiro gacanta mareysa kantiran waa asaga cali cayniyaana la dhahaa اتفق أنا ربنا ما أنت على الشيخ إن قادنا قعدنا ولا جيب واحد كوجيانه على الشيخ ما ربنا إن قادنا نلا لا قاعد حوليها كدجن إنه قاعدان ربنا عن سجنا وحرمنا هدي إلهي كوجوليا ورعالي الشيخ من رد بين لده حوليها كدجن متفق سواء اللي عبارنا انت قدام بيسلا ده بدن oo aan si dhaay in hebel baaysan baan malaani waad yoogtiin kulli waad garanaysin waxaan rabaa wixii taariikh iyo tafaasiil waa la bixi waadna ogtihiin inaan laba jeer oo kale intaan soo hawoodo tol un reebay oo iska noqday oo tolkan u qabsoome marka waxa waaye midda ugu hore idin sheegay horta waxa waaye dad baa laga yaabaa hadda inay ugu soo xisaabtamayaan oo laga yaabaa inay isleeyihiin cali sheekh xasan waan reebaynaa baaqa u diray waxa waaye ha sukay soo daalinina ani waan socdaa meesha ugu dambe tolka de waxay diidaan tolkan ku qancaa laakiin meel intii la fariisto odayaal iskugu yeero la dhaco cali sheekh aan reebno kan aan reebno ani jaamacadda reebitaanka waan soo bogay mogta waan ka soo barmoosay jaamacadda reebitaanka waan soo bogay 10 sano dhan bay qaadatay waan bogow marka hadda wax jaamacad reebitaan la dhaho aniga ma jiro ninka soo qabsanayo oo kuura dadka la kala celin oo dad baa la kala reebi leh oo wax soo xirxirahayo waxa uu kala reebi rabaa cali xisaabtii ku darsan cali waa la soo reebay 10 sano soo hare tan waa tiisi ama tolka wax u diidi ama uu heli waa intaas midda kale waxa waaye aniga cilmigii wax lagu raadsan lahaana ilaahay way baro waan akhristay jaamacadna waan dhigtay in alla intii tol wax lagu qaban lahaa waan soo bartay tolka inaan u adeego oon daacad u noqdo oo lilaahi anoo iga tahay oon qof islaamna ku dulminaynin baa wax u raadsanaya waad ogtihiin inta jeero waxaan soo dooranayne dad un baan soo dooranaa dadka aan soo doorana saan rabnana kama helno saan baa la sheegayaa meel walboo tagta calacalka waa isla yeerayaa waxaan isleeyahay sababta ay ku imaatay inteenan oo dhan baa maaragtay sabab u ah sababaha ay ku imaanayso inaan qof soo dooranno waxbaan uu noo qaban waayo annagaa sabab u ah waxaan sabab uguna idin sheegi qof markii la soo dooranayo qabiil baad ku soo dooranaysaan reer barquuqa cuuliyahan sagaalkiisa dab waa degan soo ma aniga nin baa yuusuf baan iska ahay oo magacii baa imara laakiin nin cuuliyahanimada ay deeqda cuuliyahanimadaas wax ka dheer oon sii raadsanayo ma laha cuuliyahan oo dhan baan dhex socdaa cuuliyahan oo kuura isiiyaan leeyahay haddii cuuliyahan kuura isiin waayo ilaahay ima qorin qofna kuma eedayo hadduu isiiyana ilaahay baa ii qoro lawxul maxfuudka wuu ku qorin nin bedeli karana ma laha ma aragtaaye in alla inta garab taagan i taageersan muhiimadda iga taageersan qalbiga qofka kaa taageerana wax walba ka muhiimsan aniga waxa aan raadinayo waa mas-uulnimo ilaahay baa bixiyaa
maalka ilaahay baa bixiya awlaadda ilaahay baa bixiya laakiin nimaan raadsanin oon lugihiisa ku raadsanin looma keenayo soo mogidin annaga asbaabtii lagu raadin lahaa un baan ku jirnaa ilaahay hadduu noo calfana waan helaynaa hadduuse ilaahay noo calfinna waxaan ku eedaynaa malaha tolno kuma kalena in alla intana garab istaagtana waan u mahadnaqaynaa reer barquuqa shalay sida weyna noogu soo baxdeen ood nooga hor imaateen aad baan ugu mahadsan tihiin ninka aan meesha imaaninna intiina matashaan aniga barquuqe ma kala qaadaayo barquuqe waa barquuqe waa hal magaalo cali hadduu wax noqdo barquuqe baa wax noqon cali hadduu wax noqdo banaane baa wax noqon cali hadduu wax noqdo buulo ceeldheere tokojo kulli baa wax noqon insha allahu tacaala lagdheera oo dhan iyo geedkeeda axmed tukaali kaambisamaak inta udhexeysaa wax noqon siyaasadda munaafiqnimo waayo in laga dhaadhiciyo waxaan rabaa inaan idinka baabi'iyo oo idin sheego siyaasad munaafiq maaha siyaasada hadba dhinacaad u gasho bay kula geli siyaasad munaafiq haddaa ciyaarto siyaasad munaafiq bay ku noqon siyaasadda hadday noqoto siyaasad saliim eh oo lilaahine oo toos eh sidaas ayada aad ka raasatun bay noqon marka waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaa reer barquuqee tihiin soomaali waxay dhahda rati maxaan le geel rati markuu soo qooqo maxaan le geeli uu ku qooqo ka hor muuqdaa sooma soo saas ma la dhihi jirin ratiga iskama qooqo sooma markuu qooqo geeli uu ku qooqa ka hor muuqdaa baa la dhihi jiray inta aan ku soo qooqaa kamid tihin ideelkiina oo aan leeyahay kuuraba ku siin doonaan waa intiin in lamid oo tolka waa maqasheen sooma meel baan deganna hadda xuduud ah boundary baanu lagu hastaa arrimaanu lagu hastaa la leeyahay meeshan waa idin laga rari waa laga maarta maalmo baa naag baa noo goodisaa meelaha inta taagan ninkii jac naga dhihi lahaana waan laanahay marka insha allahu tacaala dee cadowgaada waxaa le waa la iska sugaa mase waa la iska sabaa soomeen waad marka anisaa idin sheega waxay wax naga sugana waan laan wax naga sabana waan laanahay labadana cali baa isku dari doonaa insha allahu tacaala labadaba cali baa isku dar insha allahu tacaala waxaa waaye haddii ilaahay noo sahlo way sahlan tahay laakiin haddii ilaahay adkeena de oo adinkii sababa annaga darteena u adkaatane kolleyba waa wax lagu eedi ma laha waa taariikh ilaahay oo qoran marka reer barquuqe inta islaamka eh oo relegdheer ah oo aan wax ka doonayno aad mid tihiin weliba idinka xoogaa naasnuujin hoosaan idinku leeyahay sooma intaas oo garabkiina eh oo hiiladaas eh oo garab istaage waan idinka baahanna insha allahu tacaala waddankeenna wax ilaahay abuurtay oo dawladda noo imaanta male un baa laleeyahay qofka markuu mas-uul yahay abooka bishaar hadday xadiidku sheegi waxaa waaye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih idinkoo idil waxaa la dhahay waxaa la raaci waxaa la ninka ariga looda raac ariga ama xoolaha la raacyaa la ariga ninka salaadii raaco galabtii markuu cidda keeno soo lagama xisaabaan lama fiirinayo inuu goosin keenay inuu wax ka maqan yahay sooma la ogaana haddii wax uu ka maqnaado ariga goosin uu keenay yaa mas-uulka ah kii la raacay sooma reelegdheera nin bay soo doorteen oo dantooda ay u dirsadeen oo u raacay haddii ariga goosin keenayo asagaa ka imaatay mas-uul waxaa la rabaa bil kasta lacag baa lagu qaataa in tolka lasoo dhex maro shidaal iyo lacag baa lasoo siiyaa embiga oo la dhaha tolkaada kusoo dhex mar lacagta ayadaheedna maalin walbo meel alla meeshaa tagtay waxaa lagu leeyahay 4 sano maana arkin marka meel ay soo aadaan baan fahmi la soomaalidu waxay dhahde hal barkeeda qalan yahay barkeeda kalama geeda daaqda maqli jirteen inta garanaysa marka aniga haddii wax yar haddii aan bisho idinka maqnaado bisha kale waan idinla joogaa insha allahu tacaala meelahan kullina saas waay waxa aan ballan qaadi karo horta waa wax kale intaan la gaarin waxaa waaye cali baa sanad dhan meeshan soo marin lagama maqlaayo
oo soo dul istaagay insha Allah ta'ala habeen maalin waa idin la jooga midda kale oo idin sheegi rabo waxa waay wadanka Kenya konton sano hadda iyo dhowr buu xoriye 60 buu ku socdaa sano inuu xoriye Soomaa 60 ka sano uu xor ka yahay doorasho ma dhacaysa doorashada dhacaysana maalin alla geliyo go'aan loo keeno baa wax ku dooranaa Soomaa ma isfahanti ma isfahanayna go'aan nili soo gooye oo qabiil iyo balaayo kale ku saleysan yaa wax ku doorataan odayaasha reeraha ciidaheena hadda intan oday waay Abukay Axmed laga bilaabo Xaamud Abukay Aadan Oomane Abukay Bishaar Maxamed Carabi Abu Daawud intan waa odayaal waxay oday yihiin waa ciida Soomaa iyo raacali oo dhan iyo cuuliyan oo dhan bay oday yihiin Soomaa hadee 60 ka sana go'aan bay noo keenayeen odayaasheen aabayaalkeen adeerayaalkeen abtiyaalkeen meel walbo ay joogaan iyo magac kasto ay yihiin way ku sharfan yihiin wayna ku mahadsan yihiin waana ku qadarinaynaa laakiin hal codsi baan ka rabnaa codsigaas oo arrinka siyaasadda iyo arrinka dhaqanka cidda inay kala bixiyaan baan rabnaa waxna waa siyaasa waxna waa dhaqan waxa la wixii dhaqanka odayaasha kuma haysano dhiig baa dhacay wax baa la kala qaadanaya gar baa jirta wiilal baa isdileen gabar baa la xumeeyay waxa markay noqoto oday baa iska leh siyaasad markay noqotana nin walba iska leh dhalinta iska leh gabdhaha iska leh dumarka odayaasha iska leh waa jamac waa la isku jiraa hasha kaliya marka dadkeena odayaasheena ay sameynayaan waxa waay gabdhihiin waxay dhahayn waxaad sheegaysiin ma lahayd jooga wiilashin waxay dhahayn wiil intuu geed ka boodo tala ka boodaa jooga siyaasadda annagu ba iska leh way noo soo go'aaminayaan marka annaga waxaan rabnaa tookadan safarkan 2022 waxaan rabaa gabdhaha iyo wiilasha dhalinta in la fasaxaan rabnaa oon lagu xirin arrin oday oo arrin oday aan lagu xirin oo go'aankooda ay gaaraan oo xarkaha lugaha looga xirayo laga furo oo duca iyo habaarkan amaanada odayaasha la taagan yihiin ay iska dhaafaan siyaasadda aabow ninkan aan dooran iyo ani kan aan dooran iyo ma dooran kartid waan ku habaari kuma qabana anaa ku fatwan habaar kuma u dhacayo aabaha ama waalidka waxa aad ku ayidayso waa wax islaamnimada iyo diinta iyo waxa ku salaysan waxa alla wixii aan kaafirnimo ahayn waad ku adeeci waalidkan waa lagu taageersan laakiin siyaasad Soomaa ra'yiga dadka lama maquuniyo nin walba asaga maskaxdiisa ka shaqeynaya asaga fahansan wuxuu rabo dadka xurriyada lagama qaado dhalinta xurriyad baa tihiin maamushinka xor baa tihiin nin alla ninkaad u aragtaan in danta idin ku jirto doorta kaas cali xasan haduu ahaan hata ku kala cuuliyaan u yahay ama raaci kale u yahay yani lagu qasbin ruux ina niidiisa rabin ma isfahani odayaasha waana inuu leen tale inuu leen laakiin haddaan aragna inay ka hooseyso waan ka leexanaynaa ma isfahani aniga waxaan idin ka rabaa maanta haddaad ii heelisaan de anigana waa idin heelin Sooma marka maanta heel baan laga baahan 2022 cali sheekh xasan ilma sheekh xasan nuur kali kuurahooda 70 waay haddaan isku dardaray waan xisaabtay ma ogta markuu kuuraha aad xisaabayso baad isku dardarsani ilma sheekh xasan firkooda waxay dhaleen kuurahooda 74 waay 74 kaas dooro cali sheekh xasan ha soo hele horta meesha sanduuqay waa dhigi sawirkayga waad arki doontiin insha Allah ta'ala nafti ilaahay diigu sim hadaa tolka wax ka waayo waan qanci waxaan dhigi tolka la kuma wajacdo wax iska riye iska ahayd haddaan wax ka helane alxamdulillah waa saaribna Sooma wax alla wixii doorta ama wixii garab istaago ama ni iga taageersan ama garab ii ana mahad aan la soo koobi karin baan u haynaa insha Allah ta'ala liibaan iyo guul iyo reyn iyo barwaaqo baan naga horeysa insha Allah ta'ala kolka
tolka waa wanaagsan yahay wax dhib ay qabaan ma laha abo dalaara maxaa dhahay arrintii oo naa gaari ma fiicante qabiil waxba idan ma taraayo madoogaasha biyo la'aan waaye qabiil baa keeni lahaa koronto la'aan waaye qabiil baa keeni lahaa barquuqa biyo la'aan waaye qabiil baa keeni lahaa qabiil waxba ma keenayo qof daacad oo lilaahi oo wax inuu tolka u qabtay ay ka go'antay bes wax idin keeni karaa haddii kii hooyada dhashay ku hooyada ay dhashay kurka ka goon baa jira ku talaada ku fiican oo wax walba ku siin baa jira waxba idan ma taraay qabiil iska dhaafa isku tashada waxa isku tashataan yaana anfici soomayna fahmin tol culihan baa jooga tol reecali baa jooga oo wax raadsanayo ka ishaarada qabato oo ani aydan kugu sokeeyo oo khayrka ku jiro Allah na siiyo waxa waaye idinka ma tala Soomaaliya